أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan dhammaantiinba soo dhowaada maalmahanba waxaynu runtii wadnay ilaa toddobaadkii hore wacyigelinta ku saabsanayd xanuunkan ummadii oo dhan iyo adduunyadiiba wada sareeyey kala curyaamiyey runtii xag dhaqaale xag caafimaad iyo dhinac kasta caawa waxaa runtii igala qayb qaadanaysaa Sucaad Cismaan Aadan oo loo yaqaano Sucaad Qootaali kana mid ah xirfadlayaasha caafimaadka ka howlgala magaalada Bristol oo ah kalkaaliso caafimaad oo diiwaan gashan registered nurse kuna takhasustay runtii imikana takhasus ahaan sii wada arrimaha caafimaadka la xiriira arrimaha bulshada public health bal soo dhawow Sucaad marka hore marka xiga intaan waxaan doonayaa aan halka uu maalmahan marayay waxaad moodaa inuu hoos yaro dhacay maanta waxa uu marayaa inta qof ee xanuunka ku dhacay maanta waa 40,261 runtii marka la eego loo eego 7 cishay ugu dambeeyay boqolkiiba 25 ayuu hoos u dhacay waana arrin aragtii wanaagsan inuu sii yaraado hoos inooga sii dhaco dhinaca kale dhimashada haddaad eegto waxaan ka hadlayaa waddankoo dhan maanta dhimashada laga diiwaangeliyey inay covid-19 u dhinteen waa 1,400 iyo qof marka waa 1,400 oo qof marka loo eego 7 cisho u dambeeyay runtii way kacsan tahay oo waa 16% ayay kor u kacday taa macnaheedu waxaa laga yaabaa dadkii hore ugu dhacay dhowr oo kale inay imika dhimashadoodii ay tahay oo ama uu sababay uu galaaftay haddaynu eegno magaalada Bristol oo runtii ka mid ah magaalooyinka uu aadka ugu badnaa maanta waxa xanuunka laga helay 223 qof marka loo eego 7 cisho ina soo dhaafay waxa weeyaan boqolkiiba 20 ayuu hoos u dhacay runtii waa good news waa war wanaagsan inuu hoos nooga dhaco oo ay saameyn badan buu nagu yeeshay dalka Bristol nahay annagu dadka kalena aanu runtii muddo inuu nagaga badan yahay nagaga badnaa weliba bulshadeena Soomaalida aanu aad iyo aad u sii haleelay xagga dhimashada marka la eego Bristol maanta waxaa ku dhintay 4 qof marka haddii la eego 7 cishe ugu dambeeyay 3 qof dhintay cudurkan daraadii marka waxa weeye boqolkiiba 230 ayuu kor u kacsan marka weli waxaad moodaa in dhimashadii dadkii u dhimanayay aanay weli hoos soo dhicin laakiin runtii ay tahay uu bahalkiisii yaraanayo waayo dhowr ka hor dadkii ku dhacay ayaa laga yaabaa inay imika ay kasoo kaban waayeen ama qaarba uu galaaftay haddaba waxaan doonayaa caawa waxayna la joogtaan sheegay Aadan Cismaan Sucaad Qootaali weliba waxaan culays ka saaraynaa tallaalka covid-19 tallaal baa soo baxay in dadkii la wada tallaalo oo weliba dadkii waaweynaa dadkii xanuunsanay laga tallaalo lagu bilaabo weliba qorshuhuna u yahay in waddanka oo dhan tallaalka la gaarsiiyo Sucaad marka hore soo dhawow waad aad iyo aad baad mahadsantahay cabdi dalbashadaadii yeedhay ama aad ila soo hadashay haddoo alle alxamdulilah marka waa aad iyo aad baad mahadsan tahay iyo dee maanta dhaqdhaqaaqa badan iyo activenimada aad ka samaysay insha allah wax badan bay ka bedeli doontaa especially magaaladeenna inaynu joogno Bristol oo aad iyo aad u saameysay waan ku rajo weynahay runtii inaynu wax ka bedelno wacyigelintuna waa muhiim inay dadkeenana aynu badbaadano waajib ay naga saaran qof walbana waa inuu halku taagan ka howlgalaa Sucaad bal intaanan su-aalaha tallaalka ku weydiin waxaan bal shaqadaadu waxay tahay sida aad xanuunkan intaad ka warqabto sida aad uga shaqayso bal nooga waran anigu waxaan ahaa general nurse baan bartay UWI baan ka baxay magaalada jaamacadda 2 jaamacadood baa jira Bristol markaa mid baan ka baxay UWI la yiraahdo markaa ilaa waxay ahayd markaa 8 sanadood baan practice gareynayay nurse ahaan intaa gudaheedna waxaan ka shaqeeyay different department different specialist intii ugu badneed waxaan ka shaqeeyay respiratory-ga oo la yiraahdo xagga sanbabada marka waa qaybtan sanbabada iyo neefsashada iyo la xidhiidha marka waxaa lanoo keeni jiray patientada aad iyo aad u xanuunsanaya u baahan ITU-ga intaan la geynin anagaa lanoo keeni jiray markaan anagu wixii aan u qaban karno markaa wax la siin jiray oxygen badan oo la yiraahdo high flow oxygen oo boqolkiiba 100 wararka kale aanay bixin karin ama aan trainingkaa la siinin waxaa kaloo haysteen qayb la yiraahdo HDU which is high dependency unit oo xoog dadka xoog u xanuunsanaya xoogna u baahan loo ilaaliyo
markaa waxaan badanaa xilliga winterka oo kale aad iyo aad ayaa pressure weyn baa saari jira oo waxa soo badnaan jira xilliga waxa la yiraahdo intaan covidku inagu dhicin influenza marka wardka dhan gabigiisaba waxaa wada haysan jira wada influenza patientka weliba dadka waaweyn pneumonia intuu ku noqdo marka hargebkii uu ku noqdo dadka pneumonia ku noqdo ku xumaaday dadka waaweyn iskama xamili karaan ama dadka haysta already respiratory problems marka laba mashiin oo kalena aad baan u isticmaali jiray iminkana loo isticmaalo covidka oo la yiraahdo CPAP iyo BiPAP kaasaan ayaan anagu ku takhasusay ama aan bartay markaa patientkayga kaas ayaa la siin jiray kaa markay kasoo kici waayaan oo sanbabadooda supportkii waa non ventilation marka laba u kala baxaan ventilationka waa mid kan general ventilation kan ITU-ga lagu gelinayo koomada lagu gelinayo kana adigoo soo jeeda ayaa lagu siinayaa ventilation oo naftaadi si aad mashiinka neefti ku siinaya sanbabadii wuu kaa caawinaya marka kaa markuu qofku ka daalo ama uu kasoo kici kari waayo the next stage waxa weeyaan qofkan ITU ma u baahan yahay bay su-aashu ahayd taasa la geen jiray marka iminkana aad iyo aad respiratoryga waxaa loo isticmaalaa CPAP ama BiPAP labadaaba sanbabada la caawiyo waa sanbabadiiba aad iyo aad u saameeyay xanuunkani sideeba sucaaday maadaama marka horeba hargebka weliba dadka waaweyn ama dadka xanuunka qaba waqtiga weliba qaboobaha winterka saad sheegtay uu aad ugu badan yahay oo lala tacaalay iminka sidee buu saameyn ugu yeeshay neefsashadii sanbabadii sideeba isa mataqaanaa dadkeena gaar ahaan ugu sii yeeshay dadkeena badanaa waxaa laga yaabaa inaanay marka hore xanuunadan sanbabada aanay qabin waayo wardka way yareed inta qof aan Soomaali ku arkaa way aad iyo aad u yareed laakiin marka xanuunkani wuxuu aad iyo aad u saameeyay dadkeenii oo waayo waxa weeyaan xanuunadii macaankii iyo dhiigkarkii ayaa labadaasa u noqday iyaga maanta dhibaatada badan intaas ayaa u geysatay iyo mild asthma marka kani iminka xanuunkani ma dhaafayo haddaad marka hore vulnerable u ahayd iyo haddii kalaba laakiin waxa la moodaa inuu dadkii yaraa dadkii waaweynaya dadkii dhexaba cidba aanu dhaafinba marka waxay yiraahdeen waxaan hore u aragnay maha influenza-gana waxa shaqo kula waa influenza-gu aad wuxuu saameyn jiray dadka waaweyn ama dadka u nugul xanuunka sanbabada waa dhabtaasi sidaa aad sheegtay waxaad sheegtay iminka in Soomaalida badankeedu markii hore xanuunadan sanbabada ku dhaca ay ku yaraayeen laakiin maanta waxaad moodaa habeene dhaweedna qolooyin caafimaad ka shaqeeyan keenay saddexdaa xanuunaad sheegtay runtii iyaguna way carabkay ku dhufteen oo ah macaanka dhiigkarka iyo xiiqda weliba waxaad tidhi xitaa hadday xiiqdu xitaa qofka ku yar tahay very maarta ay aanay cuslayn inuu ku dhacayo marka bal waxaad ka warantaa caawa waxaan doonaya in culays ka saarno iminka tallaal baa soo baxay waa tan la tallaalayo horta tallaalkani muxuu faa'iido inoo leeyahay sidee buu si bulshada xanuunka uga difaacaya so iminka waxaan ognahay laba talaal iminka laba talaal oo la kala yiraahdo pacifier iyo kan kale Oxford labadaba marka midna Belgium baa lagu sameeyay midna waa Oxford oo magaaladeena Ingiriiska marka labadiiba way dhaafeen xilligii waa la certify gareeyay ama waa la ogolaaday in la qaato dunida kalena iminka way bilaabeen iyaguna way qaadanayaan laakiin Ingiriiska already inagu waxaan ahead baynu nahay aad iyo aad baana waa aad maanta aad ba wadankii dunidii oo dhan baa ayaa ku amaanaysa maanta actionka ay sameeyeen ama ay ugu noqdeen wadankii ugu horeeyay vaccinationka approve gareeyay taasina maaha inay degdeg ama dhaqso loo approve gareeyay waayo waxaynu ka hadlaa xanuun pandemic ah marka funding hadday noqoto hadday science noqoto hadday si kasta noqoto xoogay aad u saareen marka sanad dhanna way wadeen iminka by now maanta aynu taaganahay waxaa lagu muday vaccinationkaas 1.3 million oo ah British up to date ah oo iskugu jira healthcare providers anaga ah dadka caafimaadka bixiya dadka over 80ska iyo over 75 la bilaabay marka 1.3 gaas marka waxa weeyaan faa'iidada horta uu leeyahay waxa weeyaan in la sameeyo wax la yiraahdo immune heredity taasoo keenaysa markay dadku majority-ga marka vaccinationka la siiyo inay dadka kale aan qaadan karin ama aan vaccinationka la siin karin ama aan qaadan inay protection u sameeyaan ama xanuunkii faafayay la joojiyo la yareeyo marka aan kaa dhexgalo herd immunity waxa weeye macnaheedu inuu dadka badankiisa ku wada dhaco qaataan waxa weeye dadka badankoodii haddii la tallaalo waxa weeyaan ma sii gudbinayaan ha gudbiskii baa yaraanaya xanuunkana maaha waxa weeye waa 95% weeyaan vaccinationku xanuunku kugu dhici karaa weli laakiin waxa weeyaan symptomskii waxay noqonayaan very very mild so sidii hore kuma saameynaya dhakhtarna kuma gelaysid
waxaa laga yaaba just mild temperature mild wix symptomskiyo aad iyo aad u hooseeya inuu kugu dhaco oona dareeminba mar dhaqsana aad uga bogsatid marka taasaana waxaasoo dhan waxaa keenaya vaccinationka lagu siiyey oo jirkaaga difaac diyaara ayuu ku jira talaalkii wuxuu jirkaagii baa difaac siinayaa difaacii jirkaagu adkaynayaa xitaa hadduu kugu dhaco waxa weeyaan saameyn badan oo sidii hore maaha wax laga yaabaa inaad calaamada yaryar oo aan cusub inaad dareento oo ama madax xanuuna ama dee xumada isa talaalkan iminka aynu isticmaalayno hadallo badan baa runtii kasoo noqday waxaan doonayaa 2 su'aalood inaan kaa weydiiyo su-aasha hore sidee baa ma la aamini karaa horta is safe sidee buu maanta waxaan akhrinaya waxa sameeyey British Somali Medical Association Kenya ayaa iyaga independently study bay u sameeyeen maanta way qoraal bay soo qoreen I think Twitterkooga ku jira waana faafiyeen intay faafin karayeen marka waxay sameeyeen independent study bay ku sameeyeen inay safe tahay waayo waxay yiraahdeen by now 1.3 million balls ayaa lagu muday marka intaasoo dhan wax dhibaato ah maynu ka arkin ama wax la soo report gareeyo major incident kamay dhicin marka waxayna wax anagu maanta aan ku aragnay ama waxaan ummadda ila kaga baqadsiinayna ma jirto waayo waxa weeyaan waa safe weeyaan dadkana aad iyo aad bay ugu wacyigelin inay qaataan marka waxay yiraahdeen wixii wax anagu aan kaga shakinay ama wax maanta aan oran karno dawadani safe maaha maanu ku arkin waxayna wada eegeen all the research iyo processkay soo mareen iyo sida loo sameeyey wixii oo dhan way wada eegeen iyagana waana dhakhaatiir weeyaan Soomaaliya weeyaan marka maanta taasay usoo direen ummadda Soomaaliyeed ay israadeen bal gaarsiiya marka waxa weeye waa British Somali Medical Association waa ururka ay ku bahoobeen mihnadlayaasha caafimaadka Soomaalida ee wadankan UK degan aad baad mahadsantahay haddaba iyagoo mihnadlayaashii caafimaadka ururkoodii uu yidhi waa mubad qaba oo dee talaalkani mubad qab xukuumaddii ay leedahay hay-addii caafimaadka qaranka National Health Service iyaduna inay jirto ay sidoo kale leedahay haddana waxaad moodaa in Soomaali baynu naho waxaynu qabnaa wax dhibaatada inoo haysta waxa la yidhi weliba waxaa ilnala qaba dadka madow runtii maalin dhaweyd gaadhi inta waxaa ku taalay maqaal ay gaadhi intu qortay oo ay kaga hadlayeen cilmi baaris dhowaan la sameeyey oo sheegaysa 70% in ka badan dadka laga tirada badan yahay madowga in aanay aaminsanayn marka maxaa beenta faraha badan ee faaftay mythka iyaguna waxay leeyihiin waa myth dadkiina waxay leeyihiin bahalkani safe maaha dhibaato kale marka arrintaa bal horta seebaad maxaa keenay maxaase lagaga bixi karaa waxa weeyaan marka hore waa uu fiican tahay wixii inaad iska hubsatay waa wax cusub weeyaan wax jirkaagii lagugu muday waa waxaad hore aanad u soo qaadin ama hore aan loo maqal marka vaccinationkuna wax in badan soo jira weeyaan marka maanta de vaccinationka ciyaalka yarba immunization waa similar weeyaan markay yar yihiin baa life virus ayaa la siiyay iyagoo baby 2 months old ah way helaan mild temperature so symptomskan oo dhan ahaydo tolaad heli doonta marka vaccinationka uu ku dhacaa laakiin wax severe ama de wax long term effect ah kumaynu arkin maanta waxa keenaya dhibaatadaas waxa weeyaan inagoo aad iyo aad aan caafimaadkii dadkii caafimaadka inoo sheegay ama aynu ku aamin lahayn aynan aaminsanayn ama si khalada u fahanay waan isleenahay maanta waxaan ama wax different laydin siinayaa ama waxaan cadaanka la siinaya idinkii ma qaadanaysaane wax kale maadaama tihiin minority people marka waxaynan gashay cuqdad bayna gashay ama aamin la-aan aynan dadkii caafimaadka aynan aaminin hadday noqoto informationkana waxay dadka informationka inta badan ka helayaan waa through social media weeyaan iyo hadal hayn oo la oranaya hebel baa saa yiri heblaaya saa tiri ama hebelba waxaas xanuunkaasi ku dhacay imika maantadaas ugu dambeysay talabaad xitaa guardiankan mirror kulli way soo qori karaan article ay iska soo qorayna oranaya waxaasaa dhacay imika maanta waxaan arkay intaasoo qof oo waxa ku dhintay nursing home vaccinationkii markii la siiyeen waxaas waxba kama jiraan waayo waxa weeyaan wax la yiraahdo yellow card baa jira oo wixii major incident lagu report garanayo hadday taasi dhici lahaydna dawadan I don't think so in la sii wadi lahaa markii waa la joojin ama withdrawal baa lagu sameyn lahaa marka taasoo kale markaad wax laga article-kaasoo kale markaad akhridadoo kale waad rumaysan karto onase okay mira baa soo qoray waxbaa ka jira waa dhab weeyaan marka halkaa ay shaki ka keeni karto ama dhibaato badan ka iman karto marka waxaan oran lahaa qof kasta horta dadka waaweyn way ku adagtahay in iyagu ay sameeyaan research gooniya laakiin dadkoogii yaryaraaba guryihii jooga
iyagiiba akhriyi kara waxay samayn karaan their own independent research bay samayn karaan oo wixii studiyadiiba eegi karaan studies baa jira the journal medical studies baa jira la eego taasay eegi karaan waxay eegi karaan processka la maray wixii oo dhan everything waa online baan maanta ayaa laga heli karaa waa publish weeyaan marka mediagan waxaan jeclaan lahaa in sida saxda ah aynu isticmaalo aynan u isticmaalin xagga xunun aynan ka eegin xagga fiican aynu ka eegno informationkana meeshaynu ka keeno aynu hubsano wada adigu su-aasha isweydiisa tiraado ma islaan yaro whatsapp ka soo dirtay fariinta mise dhakhtar dhanoo medical channel qoray baan ayaan rumaysanay keebaan rumaystaa waa sax ma nooga tilmaami karaa ama kartaa su-aalaha ugu badan ee imika beenta ah ee la doonaya in laga jawaabo ama la doonaya in la fahmo runtii dadku ay fahmaan صح waxa weeyaan wax la yiraahdo myth busting marka myth busting waa been abuur weeyaan laga sameeyo vaccinationka waana anti vaxxers ayaa jira dad badan baa jira campaign sameeyo waxa ku jira celebrity baa ku jira wada agenda gooniya u leh markaas waxan waa wax soo jira in badan weeyaan haday noqoto vaccinationka marka wax cusub maaha marka wax kasto cusub markay timaado dhibaatadan way timaadaa oo dadku su'aalo badan bay isweydiiyaan su'aalahaasna internetka xoog bay ugu faafaan dawladdu way ogtahay taa waana wax badanna way ka qabanayaan ilaa baarlamaankay gaadhay in laga hadlo oo la yiraahdo oo website-yada waxa faafinaya ama hadalka beenta faafinaya inay sharciga la raacaan ama ay ku qaadan sharci ahaan marka dhibaatada marka mid pastinkan hadaynu ka hadalno waxa weeyaan ugu horeysa waxay dadku markii uu bilaabay waxa weeyaan waxay u haystaan waxaan uu gabigiisaba yahay dad baaba jira denial ku jira waxanuunkan gabigiisaba u haystay inuu yahay duri ama duri xumaaday ama duri kibray Soomaaliya marka waxay oranayaan waxbaba dadka waliba dadka dhalinyarada ee caafimaadka qaba waxay oranayaan waxbaba waxaan imaba yeelayaba de waaba iska maayl weeyaan wixii bay sahalsanayaan xaafadii bay keenayaan xaafada waxa ku nool hore waa looga hadlay tan waa aad iyo aad dadka waan arkay dhowr jeer qof aad wareysatay hore wareystay uga hadleen xanuunkan dhalinyartii baa keenaysa gurigii markay keenaan qofkii gurigii waxa ku nool definitely qof haysta cudurrada ayaan ka soo hadalnay ka dhigay inay u nuglaadaan ama hadda age-koogu yahay iminka age-ka 75 waxa uu ku leeyahay age hadduu qofku yahay over 75 tobankii qofba markuu xanuunka ku dhaco qof baa dhimanaya wal ka waran tobankii qofba halkay tahay bulshada kale boqolkiiba qof markaad gurigiinii keentid xanuunka then chancekii waa very high qofkaas hadduu ku dhaco inuu severely u xanuunsado ama u xanuunsadin qofka isaga ama macaan kale xanuunadan saddexda ah ee runta habeena dhaweedna lagu celceliyey xanuunadan runtii aad muddo innaga weliba macaanka dadku waba qaarkood way ogaadaan laakiin dhiikarka iyo xiiqdoo kale saddexdaa xanuun aad muddo inay innaga aad inoogu badan yihiin qofka uu ku dhaco fursad intee leeg ayuu leeyahay imika waxaa tiri dadka 70 jir ka weyn 10kii qofba uu ku dhaco mid baa dhinta halka dadka kale 100kiiba qof ay ka tahay dadkana saddexdaa xanuun iyagu ma la hayaa tiradooda ama statisticskooda statistics wali way socdaan horta way baadhayaan waayo markii horeba dadkeena dad baa jira undiagnosed ah oo wali diagnose karin high blood pressure-ga ama diabetes-ka aan laga diagnose karin so dadkaasoo kale waxaa laga yaaba inuu ku dhaco waliba ragga usii badan yihiin in xanuunka dhakhtarka la galaan markii dhakhtarka galaan ay hadhowtoola laga yaaba GP-googa ama ay diagnosiskii siiyaan laakiin waxa weeyaan aad iyo aad waxa kaloo la yidhahda comorbidities baa la yidhahda waa xanuuno israaca weeyaan waa laba xanuuno israaca weeyaan marka comorbiditieskaaga markay noqoto already waxaad noqonaysaa high risk marka labada xanuun waa dhiikarkii macaanka waa dhiikarkii macaankii weeyaan marka waxay ogaadeen South Asians waxay u badan yihiin iyagu waa diabetiska iyaga highest iyaga inaga sii daran African ahaana marka inagu horta Soomaalidu dhexdii baynu ku lunnay marka la eego statuska dhinacaynu raacsanahay ma jirno waxa weeyaan Black Africankii baynu gelinaa marka iminka waa insha Allah maalin haddaba waxaynu rajaynaynaa inaynu haysano our own data keeni haysano oo dadkeenii ah oo data because iminka labadaa group baa laynagu dhex daraa caafimaad ahaan marka la eegayo inaan usoo ogaano exactly how much effectkan uu nagu yeelan karo ama ay ku dhacday marka waa researcho badan oo imika la sameynayo oo la wado weeyaan iyo sababta keenta inay dadkeenani ay u nuglaadaan marka ugu horeysaba ethnic minority maxaa keenaya marka waxyaabo badan bay eegeen imika public ahaan oo kale waan ka eegaa waanan bilaabin research xagga ka sameeyo inaan eego why u haysanada highest minority groupka ay u noqdaan populationka waayo waxa laga yaabaa dee dadka caddaanka already aad iyo aad baynu uga sarreynaa hadday dhakhtar ahaan noqoto hadday ventilation noqoto hadday ITU admission noqoto waana minority 1% baynu nahay haddana imika dhakhtarka haddaad tagtid every single ward oo covid ah ama ITU admissionka labada dhakhtar waaweyn haysana maanta South Media BRI waad ka soo helaysaa qof Soomaaliya inagoo ah minority
marka maxay sababaha marka laga yimaado sucaali saddexdaa xanuune runtii aad sheegtay weliba aan la ogeynba iyadoo laga baarin oo sidaad sheegtay undiagnosed weliba ragga u sii badan yihiin miyay jiraan sababo kale oo inagu badin karta waxay nagu badin karta sababada kale waxa weeyaan xaggii again social economic wax la yidhaha social economic oo ah oo gelaya aqaladaynu ku noolnahay xaggii dhaqaalaha waxay ku jirnaa one of the highest risk shaqooyinka ayaynu haysana oo ah oonu nahay exposure weyn aynu ku nahay covidkii oo ah basaskii bus drivers taxi drivers takeawayada dadkan ka shaqeeya marka inagii already high risk ba ay gurbiyadaniga way exposure baynu leenahay contact baynu nahay frontkii baynu ka shaqeynaa shaqooyinkii low paidka ayaynu ka shaqeynaa maanta de waa shaqooyin important weeyaan laakiin waxayna gelinaysaa already high risk bay ay already na gelisay overcrowdedkii again gurigii bulshadeeniyo aad ogtahay inaynu overcrowded ku noolnahay taasina waxay u sahlaysaa inuu xanuunkan xoog u faafo oo gebigaba outbreak nagu dhacoba oo meesha flatka dhanba outbreak ku dhaco iyo inagoo maanta qof kasta imika waxa la yidhahdaa imika dowladdu aad iyo aad waxay u saartay xooga weliba xanuunkan cusubinta soo baxay inaad assume garayso qof kasta inuu xanuunkii haysto ya waxa kaloo jira symptomskii dadkeenii weyn wareeganaa waxa jira dad badan oo bilaa symptoms oo aan symptoms ba haysanba adigoo caafimaad qabaad iska socota laakiin viruskii waa kugu jira oo active weeyaan adigoo active markaad wado qof baad u geysa qofkaa kale adigii baaba qaadsiiyeyba marka waxa laga yaabaa inuu sidaadoo kale ama ahaado isaguna sii gudbiyo ama isagii khatar geliso oo maanta dhakhtarkii geliso ama halkaa uu naftiisii ku waayo marka silent symptomskaasina dhibaato badan buu keenay waayo qufficii maad isku arkin temperaturkii maad isku arkin waxaan leeyahay caadi baan ahay then communitygii baad dhex socotaa adigoo protectionkii saddexdii shay ee laynoo sheegay ahayd maskii spacekii iyo gacantiiba aanad meelin labada saddexdaanad sameyneen xanuunkiina wata ayaad bulshadii dhex wareegaysaa marka iyadoo inagoo aan xidhan afxidhkii maaskii inagoo aan mataqaanaa kala durkin oo aan ilaalin iyo bahalkii oo qarsoon runtii calaamadihii oo qarsoon oo aanad moodeyn waa runtaa waan arkay weliba NHS iyo xukuumaddu gebigoodaba fariinta ay gudbinayaan waxay ahayd u dhaqan sidii oo adiga ku hayaba xanuunkii adiga laftiga asaasun baad ku ilaalin kartaa bulshada kale waayo adiga haddaad isilaaliso aad u dhaqantay inuu ku qabo xanuunkii wixii oo dhan baad practice garaynaysaa waa kala fogaanshihii maaskii iyo gacmiyood markas iska midho sidii qof xanuunkii hayoo kale ayaad isku ilaalinaysaa bulshadiina aad u ilaalinaysaa maxaa habeenna dhaweydnaanu ka hadalna iminkana waad sheegtay wax tiri guryaheenii waa runtaa oo waynu badannahaa laga yaabaa guri yaroo cidhiiriya in qoys ballaaran uu degan yahay oo ama 3 ama 4 maqsina ayaynu laga yaabaa 5-6 qof ay degan yihiin dhalinyaradii si aad sheegtay dibadda intay ka yimaadaan guriga imanayaan iyo xaggii maqalka ood moodo inaynaan fariimihii si fiican u qaadinayn marka iminka tallaalkan sideebaa gaar ahaan ragga aad sheegtay tiri kaba soo qaad ninka qofka ragga ama ragga ninka aan badanaa teginba dhakhtar aan GP-giisa aan muddadiiba mar tegin ee aan ogeyn in uu mataqaanaa leeyahayba mataqaanaa dhiigkar kaba soo qaad xanuunkiina uu ku dhaco intaanu ku dhicin sidee qofkaa looga dhaadhicin karaa inuu istallaalo tallaalku faa'iido u leeyahay so imika weli imika bulshaweyntii may gaarsiin waxay doonayaan by September by November hadduu aleedmo intaan winterka kale soo gelin inay the whole populationka dhan inay vaccinate every adult inay way caruur laguma sameyn waa adult meelinka eegana in vaccinationkan available looga dhigo marka imika GP-yadii iyo dadkii ethnic minority-ga la shaqeynaya weliba gaaran Soomaalida imikay doonayaan inay xoogga saaraan marka way ogyihiin dhibaato badan inay ka imanayso especially gurbiyada aad imika sheegtay rag oo kale dadka adag sida looga dhaadhiciyo ama qofka isku haysta inuu caafimaad qabo oranaya maxaan anigu virus iskugu mudaya anigoo socda caafimaad qabo waxba aanay haynin ama xanuunkii hore ugu dhacay uu ka bogsaday una haysto inaan xanuunka weli unu ku dhici karayn mar labaad marka imika waxa weeyaan wax la yiraahdo campaigning waa in weyn la sameeyo weeyaan oo dadka dee laga yaabo inay diidaan dawada had markay noqoto by the time ay gaadho September ay diidaan aanay qaadan marka ilaa imika waxaynu haysanaa imika bishii koowaad baynu ku jirnaa ilaa September inaynu dadka ka dhaadhicino ama awareness badan aynu sameyno marka waanu xukuumadana de waxaan isku daynaa inaan iyagana isticmaalno xaggooga inay ka dhaadhiciyaan ama aynu helno sifooyin lagaga dhaadhiciyo dadkani muhiimadda ay leedahay inay vaccinationka qaataan waxaa laga yaabaa inay inaga noqoto kaliya laynagu soo qaban karo ama dadkeena travelkii in laynagu xidho maybe taas
waynu socod badannahay marka lagu yiraahdo ma dhoofi kartid by May ama June samarkii ma bixi karno haddaanad ilaa aad vaccination qaadato bay kugu noqonaysaa marka talabaad waxaa kaloo dhacaya dadkeedii in badan markay qaataan inay arkaan inaanay xanuunka inaanay vaccinationka wax dhibaato aanay lahayn marka waxaan rajeynaya dad badan oo qaatay inay ka hadlaan ama ay soo baxaan ay yirahdaan waanu qaadanay waxna nama yeelin dadkeena waaweyn iyaga see baa loo gaarsiin karaa waayo dad waaweyn oo badan baynu nahay waayeela oo weliba qaarkood keli degan yihiin qaarkood laga yaabay in aan mataqaana aanay haysan ciyaalkiiba aanay u tarjumi karin iyagiiba ciyaalkiiba aanay isfahmaynin oo ciyaalkeena waxay ku hadlaan English bay ku hadlaan marka sidee baa dadkeenaasoo kale wacyigelintaa loo gaarsiin karaa loogana dhaadhicin karaa inuu tallaalku faa'iido u leeyahay iminka dadka xoogga la saaraya waa dadka waaweyn sidaan soo sheegay dadkaasoo xanuunka iyagaana ugu nugul iyagaana khatar ugu jira markaas waxaana iyagana loo soo horreysiiyey sababtaa weeyaan marka iminka already invitationkii waa la diray so every GB dadka dee soomaalidaasi dadka waaweyn register ka yihiin waraaqihii they should find by now iminka hooyo way usoo dhacday waan u sameeyey balanteedii way qaadanaysaa aniga waa layga talaalay waan habeen baan shaqeeyaa so bir horaa lay talaali lahaa marka iminka aniguna waan samaystay balanteedii marka waxa weeyaan inay GP-yadii areadaas ku nool areada ay Soomaalidu ku badan tahay GP-yadii waa inaan anagu la shaqeyno weeyaan oonu ogaano exactly inta diiday iyo in kale iyo inta ogolaatay hadday diideen ama waraaqihii aanay response samayn waa GP-gu kusoo qaraacaya waraaqdu kuguma daynaysaa imika waraaqdu way soo dareen 3 jeerna way soo hadleen balantii maxaad u samaysan weyday bay ka oranayaan markaas wax laga yaabaa in qof turjumaan ay ku qabtaan qofkii turjumaanka ku sheego laakiin waxaan doonaynaa guruubyadaas oo guruubyadan targetka doonayna inaan xoog u saarno oo ay markay turjumaankii ama intaba ay diidaan intaasoo jeer markii lala xidhiir intiiba aanay qaadan in anagoo kale ayna isticmaalaan ayaan rajeynaynaa oon u tagno oon qofkii kasoo dhaadhicina sababta ay muhiimadda u leedahay inay qaataan sucaad dawo kasta waa wax bini aadam sameyn dawo kasta saameyn bay leedahay oo markaynu dawada soo qaadno waxaa ku qoran haddii aad sidaa iyo saa tahay qaarkood weliba dawooyinka hargabka oo kale waad loonaysaa haddaad baawur ha kaxaynin haddaad meel mashiin la ka shaqaynayso ha u dhawaana dawadan ha qaadanin tallaalkana saynu ku naqaano caadi ahaanta meesha lagugu mudo way ku yaro cuncuntaa way barartaa waxaan ka akhriyey NHS websitekeeda iyagoo leh waxaa laga yaabaa in qofku yaro dareemo daal ama madax xanuun ama aad sidii qof dabaqsano ama matagi kala noqoto marka weliba waxay raacinayeen inaad paracetamol waxa qaado haddaba waxaa laga yaabaa qof calaamadaha isku arkay inuu intuu soo qaato kamarad yar iska duubo oo uu WhatsApp-ka soo dhigo yidhaahdo waa lagu dhimanay marka calaamadaha maaha calaamado kaama u muuqanayaanba horta adu waad ka hadli karta adigoo imika saa fadhiya waxa laga yaabaa inaad temperatureki ma tusi kartidna meesha siteka lagaa muday oo xanuun yeelata ama bruising yeelata waxa kale waxa weeyaan daal badan inaad dareentid so imika vaccinationka flu vaccinationka qofka lagu muday symptomska waan dareena aniga sanad kasta waa lanagu mudaa haddaanu shaqaalanahay marka waa very similar to that qof dadka waaweyna inay qaataan bay ahayd already similar ay ogaadaan vaccinationkaas marka waxa laga yaabaa fluga vaccinationka marka la qaato dad baan waxba dareemin dadna 3 cisho ayay u jiifsadaan oo sidii duur hargab xun ayuu kugu noqonayaa marka kana waa sidoo kale marka waxay ku leeyihiin talada bixinay waxay 3 cisho haddaad isku aragta calaamooyinkaas uu kasii bato 3 cisho waa inaad 1 ka soo qaraacdid weeyaan aad sheegtid waayo waxa laga yaabaa temperatureki hadduu high noqdana inaad taana immediately markiiba action qaado waayo xanuunkii baaba laga yaabaa inaad qabtidba inkastoo ay ku yiraadeen dawada markaad qaadanaysid adoo bilaa symptoms waa inaad noo timaada marka dawada la iskagama kaamudayo ilaa la ogaado inaanaha hadduu kugu dhacayna waanaad 2 week sugtid weeyaan waanaad 2 week sugtid very good marka xitaa ka waran dadka allergiga lahoo kale so dadka imika sofa imika advice-keeni siin waxa weeyaan inay iska daayaan oonay qaadan vaccinationka yet laakiin waxa laga yaabaa inay qaadan doonaan laakiin imika waxa ugu yaraan 20 minute-na waxay sameynayaan observation 20 minute marka dawada lagu siiyo 20 minute-ka waa inaad joogtid weeyaan department-ka meesha lagugu muday aanad ka tegin aanad ka dhaqaaqin any immediate markaasay eegeen any immediate reaction waayo reactionka anaphylaxis waxa la yiraahdo ayaa waxay dhacdaa the first 20 minute-ka ugu horeeya ayuu qofku reactionka tusaa jirkiisu markiiba the defense buu gelaya difaac buu gelaya dawadan buu rejection sameynaya uu diidaya taasina waxay only dhici kartaa kuma dhici karta 3-4 waa 20 mirir gudahood ayaa lagu ogaan karaa inaad allergy ku yeelatay dawada iyo in kale
then hadday election noqoto waa caadi weeyaan markii waa lagu daweyn karaa dawadeedu waa toos weeyaan way hayaan medicskii baa diyaara so wax laga werwera maaha haddii aan caawa isku mudo shaqadii way shaqaalihii way wada shaqaynayeen iyagoo lagu wada muday shaqadii ama waxaan jeedaa kama soo qaada aniga weli ima mudin haddaan caawa isku mudo 20 kaamirir meeshii lagu muday aan fadhiyon ku nasto haddii aan 20 daqiiqo gudahood wax mataqaanaa saameyn degdega arki waayo oo allergic igu sameyn waayo wax dhibaato hadhow ima keenayo maayo waxa kugu dhacayo mild symptoms kan kale uu hadhow talo xumadii oo caadiga iyo intaasa kugu soo baxaysa the next 2 days ka dambe ay kugu soo baxaysa u jiraa wax olala ah ood og tahay oo ka soo baxaya hay-adaha caafimaadka magaalada Bristol kulley qolooyinka caafimaadka bulshada ka shaqeeya public health oo kale oo golaha deegaanka hoostaga Bristol City Council waa laga yaabaa iyagu aan arkaa way wadaan laakiin wax hay-adahan caafimaadka sida NHS oo kale oo idinku xiran qolooyinkiina mihnadlayaasha caafimaadka ama dhakhtarahaada ama neersaadi miyuu jiraa campaign noocaasi ay weli imika waxaan anagu ka warhaynaa ama wax jiraa ma jiro oo imika isticmaaleen waana tu lagu dhalaaceynayo weeyaan because way ogaayeen researchka way arkeen inay dadkan yihiin dad aad iyo aad u diidaya ama markay researchkan la sameeyey aad adiguba sheegtay taana way arkeen taasina waan arkay artikalo laga qoray oo la leeyahay dowladdu inay sii diyaaraan wax la yidhahdo cultural sensitive campaigning inay diyaariyaan baheed manayna sameyn waxaana laga yaaba insha Allah inay sameyn doonaan laakiin at the moment focus kamay saarin wax campaign oo haddaba inaga bulsho ahaan maadaama maxaa ilaa ma daawan karno dadkeeni waaweynaa oo maalin dhakhtarka la geynayo ama dadkeeni kale ee xoogaha ee shaqaynayay sida aad sheegtay weliba shaqooyin mataqaanaa adag oo isugu dhici oo si sahal ugu dhici karo ama taxi ha kaxeeyo ama bas ha kaxeeyo ama warehouse ha ka shaqeeyo ama NHS laftigeeda ha ka shaqeeyo waa meelaha ugu adag sidoo kale carekii meelihii daryeelka ayay ka shaqeeyaan dadkeenu marka maxaa bulshadeena la gudboon inta ay qoladan dowladdu inoo imanaysa leedahay warba maxaa inagana la sii gudbo so imaka inagu wayna aad iyo aad isku ilaalina waayo already waxaana la geliyay high risk group aynu ku jirnaa so imaka shaqo kasta risk assessment bay samaysaa so anu markaan soo noqday shaqadii ku noqday waan maqnaa pandemicii hore waan maqnaa geesaan joogay kan markaan imaka soo noqday September ku noqday shaqadii waxay igu sameeyeen risk assessment anigoo caafimaad qaba waxba haysan already one score bay siiyeen because of my ethnicity so taas already way ogaadeen dowladdu wayna isku wada raaceen in groupkaas high risk yihiin marka hore one scoreka sucad one scorekaas muxuu yahay noo sharax one scoreka waxa lagu siiyay because of my ethnic minority inaan ka imid backgroundkaygu yahay ama geneticskaygu ku jiro inaan anigu high risk already ahay marka horeba khatar baad u tahay bahalka khatar baad wadu nugushahay xanuunkan waana researchkiina ayaana taana cadeeyay maanta ilaa maanta pandemic bilaamay ilaa September la soo gaaray so already action baa la sameeyay actionkaana waa governmentkii baa qaaday inay risk assessment lagu sameeyo so categorygaas la nageliyay markay soo dhaafto taa waxa la yiraahdo PPI waan isticmaalaa personal protection PP so anigu markaan shaqada ku jiro I don't feel risk inaan ahay laakiin communitygeena markaan ku dhex jiro markaasaan risk dareema waayo qof qabiyo qof kale shaqadiisa waxaad ka qaadaysaa qof kasta inuu qabo xanuunkii waad islaalinaysaa intii aad islaalin kartid taasina waxay arkeen riski uu aad u yaryahay shaqaale waayo markii hore beginning waan ognahayna shaqaale badan oo ethnic minority ay ku dhacay waayo may haysan nobody had protection ilaa iyagu may garan wax la isticmaalayo wax laakiin marka aad iyo aad u taas numberkaas hoos u dhacay adigaana ka mas'uula naftaada responsibility wixii oo dhan protectivekii oo dhan waa available shaqadii meel kasta u yaala laakiin adoo haddaad risk ka qaado ood iska jabisid ruuskii ood iska dhaqaaqday adigoo golofskaaga xidhan iyo alaabtaadii xidhan aad gashid then yes riskigaada iskaliya laakiin shaqada I feel safe shaqaaluna safe baa laga wada dhigay waana loo wada dhigay qofkii arkaya ama xanuuno kala haysta ama shilling baa la gelinayaa gurigaaga joog baa lagu oranaya lacagtaadina waa lagugu beygaraynaya marka dadkeena xanuunkan qaba imika xanuunadaa qaba wax la yiraahdo shielding bay sameynayaan maaha inay shaqadii tagaan waxay oranayaan xanuunkaasan qaba waa inaan isilaaliyo wayaan dan shaqadii qasab bay noqonaysaa in shaqadaadii ku beegarayso oo lagu soo diro dadkan kale self employment-kana iyagana dee wata dowladdu grant u diyaarisay marka qofka hadduu isku arko inuu high risk yahay dan isagu waa inuu action kaa qaado u yidhahdo okay shaqadin waa inaan iska daayo intuu xanuunkani dhaafayo aad iyo aad baad mahadsantahay si fiican baad runtii caawa u faahfaahisay khatarta in marka qaarkoodba shaqada markaynu joogno ay naga khatar badan tahay markaynu bulshadana dhex joogno ama dukaamadeena wax ka iibsanayno ama dariiqyada dukaamadeenu ku badan yihiin aynu marayno runtii
sidaas sheegtayna dadkeenu inay taxadaraan is ilaaliyaan mar walba markay suuqa joogaan oo kale u baxayaan wax soo iibsanayaan ama shaqo tagayaan inay maaska meel kasta waa inaad dareentid meel kasta waa inaad xanuunka u yaalaa weeyaan waa inaad maskaxdaada waad maskaxdaada oo diyaar u ahaataa runtii xanuunada inoo qarsoon iyaguna khatartooda leeyihiin ugu dambeyntii Sucaad talada ugu dambeysada caawa doonaysa inaad bulshada Soomaalida la wadaagto kaga tagto maxay tahay waxa weeyaan waxaan rajaynayaa horta vaccinationka dadka waaweyn inaan xooga saarno dadkeena khatarta ah maanta aad iyo aad xanuunka ugu nugul in laga dhaadhiciyo sidii looga dhaadhicin karaaba haddaynu isticmaalno sheekhadeena wadaadadeyna dadda ay isleenahay way maqli doonaan ama messagekan way ka qaadan doonaan waa inaynu isticmaalno weeye waayo intii waynu ognahay South Asianskii already way isticmaaleen imaamadiiba ayaa lecture sameynaya masaajidadii baa laga hadlaya meel kasta waa iyagana aad xanuunkan u saameeyey waayo way naga sii khatar iyagaabay naga sii khatarta xagga isdhexgalka iyo large family iyagaabay nagaga sii daran marka xanuunkaasna xoog u saameeyey marka inaynu inaguna stepska aynu qaadno oo aynu follow garayno oo imaamkeena aynu isticmaalo ama dadkan aan isleenahay dadkan waxbay ka dhaadhicin karaan ama messagekaas ayay gaarsiin karaan dadka xanuunka u nugul waa inaynu xooga u saarno insha Allah the next few monthska soo socda dhalinyarteennana waxa weeyaan inaynu aad iyo aad iyagana uga dhaadhicno xanuunkan khatartu leeyahay waxa laga yaabaa iyaga inuu mild symptoms ku noqdo inkastoo iyagana aan aragna iyagoo ITU ku jira dadka yaryar soo xanuunkan aanu age lahayn qof kasta uu ku dhici karo in iyaguna ay intaa ay dadaali karaan ay dowladda ruleskayga follow gareeyaan oo waxaad arkaysaa dukaanada markood baxda iyagoo iska taagtaagan sigaar ka cabaya maqaaxiiska hortaagan weli oo lamoodaba wax differentaba inaanay dhicinba wadankii sidii uu sii horuun iska yahay taana waxaan doonayaa inay aad iyo aad uga iskaga ilaaliyaan waayo wax xanuunkaa gurigoogiiba ayay u qaadanayaan familigoogiibay geynayaan qof ay jecel yihiinba xanuunkaa qaadsiin karaan iyagoo aan ogeyn ama aan is ogeyn marka taasaan kaga tegi lahaa insha Allah hadduu alla idmo waxaan mid bastinkana inaynu aad iyo aad iskaga ilaalino oo myth bastinka haddana af Soomaali ku sharaxno yani inaynu beentan la dagaalano beentan faafaysa beenahan faafay inaynu la dagaalano imika waxa weeyaan waxay geliyeen waxa weeyaan bahashani dhibaatooyinka waaweyn chip baa lay gelinayaa DNA-geygii bay bedelaysa wax ka bedelaysa waxaasoo dhan way wada eegeen researchki way wada eegeen dawadani maxalaalba ama waxa ku jira waynu ognahay vaccinationka qaar in lagu daro waxa la yiraahdo profane taana waxa isku raacay medical Islamic scholarkii baa eegay taana way investigation bay ku sameeyeen waxayna wax allaale waxaanu ku aragno ama caddaynaya inay dawadani tahay ku jirto productskaasi ku jiraan maanu arkin marka xaggooga marka waxayna siinay dawadan dawo tahay vegetarian ama dawo xalaala oo intaynu ognahay marka taana waynu qaadano weeyaan waxaan kale waa mid bastinkana waynan iska aad iyo aad iskaga ilaalino weeyaan been abuurkan wareegaya whatsappka wareegaya iyo dhakhtarka la leeyahay dhakhtarku markuu galo qofkiisii looma ogola ama dib ugama soo baxayo taasna waa khalad weeyaan qofkaaga qof baa lagu ogol yahay weli waa loo ogol yahay qofkaasi maalintuu visit garan kara laakiin the only difference waxa weeyaan inuu la hadlo dhakhtarkii lasii hadlo ballan loo sameeyo uu galo uu soo arko qofkiisii xanuunkiisii soo waraysto haddaanu iman karayna waxa la yiraahdo facial video baa loo samayn karaa video call buu samayn karaa directly videogaasuu ka arkaya qofkiisii marka waxaan tilmaan doonta video aad iyo aad uga naxayo gabadh Soomaaliyeed oo le gabadhii jaarkayga ahayd ayaa waa WhatsApp weeyaan waa message wareegaysa oo aniga soo gaadhay waxay tiri gabadh jaarkaygii oo caadi ahayd waxay kaliya qabtay waxay tiri iyadu de caafimaadkayga waxuma ku ogin malaha waxay tiri dhiikar kaliya lahayd intaasaan anigu ku ogaa way gashay dhakhtarkii maalintii labaad way dhimatay marka waxaan idin sheegayaa Soomaaliya dhakhtarkana ha tegina oo jooga oo gurigiina isku daweeya oo ha iskugu yeedhina dadkan marka waa very powerful way messagekaasi markay dad badan gaadho waa runtaa marka markii horena waxaad sheegtay cudurrada khatarta ay noo qarsan inuu dhiikar yahay markuu qofku dhiikar uu leeyahay already waxay u haysataa inuu wax sahlan yahay mana fahansanin dhiikarkan inuu marka wataa tiri dhiikar keliya lahayd bay tiri waa ina dhimata caafimaad qabtay xalay tole gurigeygii baan joogay maantana way dhimatay marka dhakhtarada iska ilaaliya iyagaana idin dilayaan aad iyo aad baad mahadsan Sucaad waa runtaa waynu wadi doonaa wacyigelinta waxaan isku dayi doonaa inaynu imaamadii masaajidada runtii ay nagala qayb qaataan sida aad sheegtay bulshooyinka kale sida bulshooyinka qolooyinkan muxuu ahaa koonfurta Asia ka yimid oo kale Pakistaanida Bangladesh imaamadoodii baa ka qayb qaatay habeen dhaweyd halkan waxaa nala joogay inan ka mid ah imaamada masaajidka Tawfiiq isla markaana ah
nin ku takhasusay cudurrada faafa Dr. Cabdiraxmaan in ilaahay hadaayo oo si fiican uga hadlay waan isku dayi doonaa inaan galno laakiin sidan kale sheegtay jib baa la gelinaya maxaa jibka in la isweydiiyo huda oo iyaduna neerso habeen halkan ka waraysaa jibka la ina gelinayo haddii la inoo baahan yahay adreeska ciwaanka halkaynu degannaha la yaqaanaa telefoon baynu haysanaa bangi baynu leenahay meel baynu ka shaqaynaa meel walbo tagto details baa lagu weydiinayaa magacaaga waxaaga dhan waa lahayn marka sababta lagu gelinayo jibka maxay tahayba marka waa runtaa taana in laga hortago iyo waxa kaloo su'aalo kala badan waxa weeye long term effect long termka maxaa dhibaata ama waxa xanuunkan igu keenay waxa la yiraahdo irreversible side effect aan dib loo celin karin horaanada ugu noqon karin taasna waxa weeyaan waa two still ay baarayaan weeyaan waayo waxa dawadan waxay wadeenun ilaa imika waa 11 months bay socotay vaccination 45,000 na way ku sameeyeen trial ugu horeeyay sameeyeen marka those 45 people wali way hayaan recordkoodii way hayaan wayna baarayaan marka so far in within that 10 months wax ay arkaan side effects may ku arkin irreversible aan dib loo celin karin reversible-ka waxa keeni kara covid markuu kugu dhaco yaran kara side effects irreversible may noqon kara dad baa jira imika 10 bilood ka hor ku dhacay xanuunkii welina side effect-kii xanuunka uu sameeyay ma waa runtaa in la isilaaliyo la taxadaro aad baad ugu mahadsantahay wacyigelinta waxaan filayaa inaanay noqon doonin markii koowaad laakiin aad soo noqon doonto inta uu ilaahay naga dulqaadiyo xanuunkan waynu ka wada howlgeli doonaa weliba qolooyinkiina mixnaladayaasha caafimaadka ama neers ha noqdo ama dhakhtar ha noqdo inaynu bulshadii wacyigelino si joogtaa loo wacyigeliyo wacyigelintaana dhinacii masaajidadana waan la xidhiiri doonaa bulshadeenana sida ay sucaad inoo sheegtay fadlan taxadarka ha la badiyo dadka waaweyn ha la tallaalo marka horeba waa tan duriga sanad walba inaga tallaalo ee la israaliyo aad baad u mahadsantahay sucaad waan kaaga mahad celinayaa runtii sida wanaagsan waqtigaaga qiimaha lana siisay iyo sida wanaagsan aad noogu sharaxday dhammaantiinba habeen wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.